بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان انت dhageysanaysa fariintan waa salaamantihiin. Waxaan halkan ku soo gudbin doonaa insha Allah taala fariimo googos ah oo aan ku iftiimin doono insha Allah caymiska shareecadu ogashahay oo xaqiiqatan bariyahan dambe hadalhayntiisu ay aad u badan tahay ayna noo soo baxday in dadka badankoodu madmadow badani kaga jiro ama ay u baahan yihiin in loo iftiimiyo. Runtii markay igu farabadatay fariimaha qofka ah ayaan go'aansaday inaan sidan u bedelo fariin muuqaal aan ka dhigo. Caymisku waxaan ka hadli doonaa insha Allah dhowr madax oo haday kalifto aan kala gogoyn doono marka hore qeexidiisa iyo halka uu ka yimi shareecada islaamka culimadii muslimiinta waxay ka yiraahdeen ka qoreen ay kaga hadleen muddadii ay caymisku hadda uu soo cusboonaaday iyo fiqiga islaamka halku kaga jiro qaybaha uu kala yahay iyo waxa uu ku kala duwan yahay qayb walba caymiska gaadiidka caymiska caafimaadka alaabta iyo bidaacada ismayaasha iyo guryaha waxa la oran karaa nooc walba oo bini aadanka dhibaatooyin lama filaan ay kaga iman karaan ayaa loo samaysan karaa caymiska markaynu gaadhno qeexidiisa ayaynu raacin doonaa. Marka waxaa soo baxday inay jirto baahi aad u weyn oo loo qabo fahamka dhabta ah ee caymiska. bini aadanku waxa aanu garanaynin ama mugdi kaga jiro waxa laga yaabaa inuu go'aan khaldan ka gaaro wax walba aan xogtiisa iyo xaqiiqadiisa ogeyn markaad ku dhisto go'aankaasi wuxuu noqonayaa go'aan khaldan. marar badan waxa dhacdo muddo kadib inuu qofku shaygii markuu ogaado uu yiraahdo sida maan moodayno hadda maartay uu isbedelo sida san ka aaminsanay waxa. marka maadaama ayaamahan dambe gaar ahaan dawladda Soomaaliland golaha baarlamaanku ansixiyay xeerkii caymiska sida la socotaan 31 Oktoobar 2022 oo la filayo waxaynu ku jirnaa dabayaaqadii sanadkii 2022 maanta waa 25 December 2022 waxaa la rajeynayaa sanadka soo socda 23 inuu ka hirgalo caymiska Soomaaliland. marka waxaan isleeyahay warbaahinta dawladda warbaahinta gaarka ah culimada dadka aqoonyahanka ah jaamacadaha xarumaha cilmi baarista waxa aad iyo aad u wanaagsan arrimaha noocaas kala ah ee bulshada wada taabanaya ee waliba arrimo dhaqaale ah xaaladdeena dhaqaalena aynu ognahay in si weyn looga hadlo oo de fariin qof gaar ah uu duubay kaliya kuma filna bulshadu inay kaga dharagto. caymisku wuxuu saameyn doonaa nolosha bulshada oo dhan waa dhaqan dhaqaale gaaraya guri walba caaqil walba reer walba magaalo walba iyo tuulo walba iyo qof walba ayuu gaari doonaa. macnaha asaawlay waxa weeyaan haddii maanta caymiska gaadiidka la bilaabo wuxuu saameyn doonaa dalka oo dhan. marka in bulshadu ay kala aragti duwanaato waxay noo keeni doontaa wareer iyo jahwareer. laakiin marka bulshadu isku si u arkaan waxa fududaanaya habdhaqankii mucaamalada maaliga xaq bay dadku u leeyihiin inay waxa ka feejignaadaan waliba waxay ku mahadsan yihiin oo runtii boogaadin mudan inay dadku digtooni ka galaan wixii shareecada iyo diintoodii mabdii noloshooda ku taagnaa ay uga shakiyaan. runtii wax aad wanaagsan oo lagu amaano bulshadeena ay ku mudan yihiin lagu amaano waana ku amaanayeen. marka waana qodobka asliga ugu muhiimsan marka laga eego caqabadaha jira fahamka diiniga ah ee dadku ka haystaan caymiska. waxa uu soo raaci karaa qofka maxaa isaga takaaliif iyo kharash looga baahan doona ama fuuli doona iyo muxuu ka faa'iideeyaa. labada inta badan bini aadanku way u sahlan tahay hadduu ogaado waxa soo gelaya ama uu ka dheefaya inay ka badan doonaan waxa ka baxaya. aan ku celiyo qof walba bini aadana way u sahlan tahay ama way u fududahay ama raali buu ka yahay inuu waxa
wax ku bixiyo oo maal ku bixiyo hadduu og yahay waxa uu ka dheefaya inuu ka weeyo ka wanaagsan yahay marka taasi waxa isleeyahay way xalkeedii waxa inoo sheegi doona ayaamaha laakiin halka ugu muhiimsan ee taabanaysa caqiidada iyo diinta iyo alla ka cabsiga iyo aakhirada qofka waa meesha ugu wararka badan ee u baahan in la iftiimiyo oo bulshada loo sheego caymiskan aynu qaadanay diintu waxa ay ka qabto marka runtii fariimaha inta maanta hordhaca ah waxaan jecelahay inaan dhowr qaybood ka dhigo maanta waxaan ku soo koobay doonaya xalqadan koowaad ama fariinta koowaad inaan intaas kaliya aan ku soo koobo qeexidda caymiska iyo taariikhdiisa haddaynu raacin karno in yar caymisku macnihiisu waa kelmad soomaaliya oo erey bixin lagu sameeyey carabigana waxaa lagu yidhahaa ta'miin englishkana waxaa lagu yidhahaa insurance marka la isku wada geeyo waxaa weeye ammaan iyo nabadgelyo iyo xasilooni inuu qofku dareemo oo dhibaatooyin iyo dhacdooyinka lama filaanka ah ee nolosha aadamaha ku lamaan eegada waxa la iska kaashanayaa maaha wax kale waa wax mar walba nolosha bini'aadamka la socda waan marna intuu bini'aadamku nool yahay aan ka dhex bixi karin intuu bini'aadamku nool yahay dhacdooyin baa jira la socda oo la nool inuu xanuunsado shilalka dabka waxaasi waa wax bini'aadamka la nool mar walba weligeedna soo jiri jiray weligeedna jiri doona marka in la iska kaashado oo culayskii qof keliya fuuli lahaa ama cid gaara fuuli lahaa tadaamun iyo tacaawun bay ku tacriifiyaan culimadu markay culimada cilmiga aada wax uga qorta waxa weeye iskaashi iyo isgarabsi iyo iskaalmayn arrintaa ay dadku u midoobeen taariikhdiisu runtii de waxaa la yidhahaa asal ahaan bini aadanka intuu jirayba wuu jiray laakiin magaca unbaa kala duwanaa markii magaca loo bixiyey unbaa laga yaabaa inaanay fogeyn laakiin intuu bini aadanku jirayba dee iskaashi iyo tacaawunku wuu jiray marba heer uu lahaa iyo marba weji uu lahaaba innagana shareecadeenna ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa inagu amray watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan marka albir waa maxay albir waa wax walba oo wanaaga oo khayr ah oo aan macsi lahayn ayaa ah xisaan iyo wanaag oo dhan waa bir samafal oo dhan waa bir marka culimadu waxay ku soo qeexeen oo ay ku arooriyeen inuu halkaa toos u geliyay nusuusta shareecada ay nafaraysa in dadka muslimka ay iskaashadaan oo ay iscaawiyaan oo wax istaraan oo qofka jilicsan ay wax taraanna waa ogtiin oo ciidaasi ka badan tahay marka tacaawunkaas ayaa lagu arooriyey fiqiga islaamka ee hore ee qadiimka ah ta'miinkan ama mucaamaladan loo yaqaano ta'miinka kumuu jirin kelmadda mucaamalo waa carabi waa dhacdo xisaabeed ama maaliyadeed oo dhex marta laba dhinac laba qof laba shirkadood shirkad iyo qof laba dowladood waa mucaamalo maaliyo wax la kala dheefayo qofna wax bixinaya qofna wax qaadanaya marka mucaamaladaas maaliga ah ee tacaawunka ta'miinka loo yaqaan ama insurance-ka ama caymisku kumay jirin fiqigii hore ee islaamka ee imaam shaafici iyo aimadii afarta ahayd iyo kuwii ka dambeeyey qarnigii koowaad labaad saddexaad quruntii dambe weliba aada u dambeysay ayaa meelaha qaar laga yaabaa in laga helo fiqiga laakiin sida hadda casrigan aynu nool nahay waa dhowaan 100 sano ka yar waa dhowr iyo 60kii markay culimada islaamka ka hadleen inta taariikhda hadda la garanayo ta'miinkan nidaamsan ee dadku qaataan ee shirkaduhu maamulaan waxaa ugu horeeyey dabkii ka dhacay wadanka ingiriiska 1666 bishii 9aad ayay ahayd September 4 maalmood buu soconayay dabkaasi
waxaa la yidhaahaa dhowr iyo 10,000 oo guri ama ganacsi ayaa ku shuf beelay oo la baqtiin kari waayay marka nidaamkii wadanka ka jiray ayaa curiyay in dadku loo sameeyo qaab ay dhibaatooyinka isaga kaashadaan qarnigii 17aad marka ahayd si rasmi ah waxay u shaqeeyeen qarnigii 18aad inta ka hor waxa jiri jiray maraakiibta iyo doonyaha badaha isaga talaabo dadka alaabada saarta inay iska kaashadaan mararka qaarna ay runtii kareystaan cid alaabtooda ilaalisa marka ta'miinku wajiyadiisu way iska farbadnaayeen mararka qaar waxa la yiraahdaa faraacinadii iyo masaaridii baa bilowday oo ugu horeysay wax iska ta'miinka bilaaba haddaba kan hadda aynu u soconay u daleenahay taariikhdu markay ahayd sida kutubta laga soo guuriyay ay culimada muslimiinta qoreen sanadkii 1962 ayaa magaalada Dimashq kulan culimo oo ka jiray qadiyadan laga hadlay xilliga marka culimadii muslimiinta ee fadhiga joogtay badankoodu yani way jireen in aan ku raacin iskuma wada raacin laakiin badankoodu waxay isku raaceen caymiskii xilliga jiray ee inta badan wadamada reer galbeed ku dhaqmayeen inuu xaraan yahay waxaan ku xarimeen masaa'il fara badan oo shariicadu ay noo cadeysay oo muaamaladaasi muaamalada fasahaadinaya oo ugu horeyso qararka ama qamaarka iyo maysarka waa xaraan asal ahaan marka muaamalo walba shabahda waa khamaaro waa xaraan buu noqonaya marka sidoo khamaaro noqday qofkii lacag buu bixinaya waxaanu garanayn buu lacag ku bixinaya wax ku dhacayana ma garan doono lacagtaasina u soo noqon mayso haddii ku dhacana waa la caawinaya adigu dhowr qodob oo soo gaabinaya 6 qodob ay ka soo saareen waxaana waxa loo batay inuu xaraan yahay fadhigii halka laftiisii ayaa waxa ay culimadii isla garteen in loo baahan yahay badiil ama alternative dadka muslimkii ay isu kaashadaan markaas inaga shariicadeena bay nafaraysa tacaawun waxa la sameeyaa ta'miin ku dhisan iskaashi iyo tacaawun oo ka maran qodobada shariicadu ay ogolayn waa intaasun runtii fahamka gabigiisu waa intaa qof walba fariintan dhageysanaya hadduu intaa fahmo way ku filan tahay mucaamalo walba laba wax walba oo la kala iibsanayo xitaa nolosheena caadiga ah ee aynu maanta ku noolnahay guryahaynu kala kareysano alaabtaynu kala iibsano dhulka la kala iibsado iska daa wax kale badeecada aad dukaanka ka iibsanayso haddaad sida sax ah u iibsan weydo waxa laga yaabaa inaad fasahaadiso ay gasho qamaar gasho ay ribo gasho ay qarar gasho wax badan ay soo gasho wax walba la kala iibsanayo shariicadu way cadeysay diinta shariicada islaamku aad iyo aad bay u tafsiilisay mucaamalka bini aadanka dhexmaraya in aan haba yaraatee wax khiyaano ah iyo wax sadbursi ah aanu soo gelin arimahan ay shariicadu xarintay sideedaba dadkay dan u tahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka ku caawidimayo dhibaato iyo culays u dadka saaray maaha waa dadka dantooda arimaha la xarimay dhammaantood waxa la xarimayaa in qofka kale uu ka sadbursado ama uu maalkiisa xaaraan xoog iyo dulmi ku qaato ama khiyaano ku qaato marka waxay culimadu isla garteen in la sameeyo ta'miin ama insurance ka maran qodobadii kan kale uu ku xaaraantimoobay inta wixii ka dambeeyay marka runtii waxa loo sameeyay nidaam waxa loo sameeyay habraac waxa loo sameeyay qaab farsamo oo lagu maamulo waxa la hirgeliyay shirkadii horeysay bangigii horeysay waxa Malik Faisal ayuu ahaa ta'miinka tacaawuniga ah marka magacaas u bixiyeen kaasna waxay u bixiyeen ta'miin tijaari kana waxay u bixiyeen ta'miin tacaawuni kan islaamka culimadu ay baneeyeen mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin aan runtii jecelahay dadka dhalinyarada aqoonyahanka jaamacadaha inay runtii fahmaan si baaraan waa mabaadi' waaweyn ku kala duwan yihiin kan tijaariga ah shirkadda maamulaysa marka ay lacagta dadka ka qaado iyada iska leh laga bilaabo saacada tasarrufkiisa wixii ay ku ballan qaaday ama haduu shilinka baabuurta ahaa ama caafimaad ahaa adeega waad ka helaysaa laakiin lacagta ayaga iska leh kan
islaamiga culimadu waxay ku qeexeen sida soo socota kow shirkadda maamulaysa waa wakiil doorkeeda ama kaalinteedu waa inay isu keento dad fara badan oo sanduuq ku midooba oo iyadu waxay u saciyaysaa u dadaalaysaa inay dad badan isu keento wakaaladda waxay ku leedahay khidmad oo aynu haysano yani daliil sharci ah zakada oo ah arin cibaado rukniga islaamka ee saddexaad ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey dadka ka shaqeeya ee soo aruuriya boqolkiiba 12 badh ama taajir ha noqdo ama faqiir ha noqdo ama madax ha noqdo waxaa la yidhi shaqada hadduu qabtay walcaamiliina calayha sideedaasu ka mid yahay sideedda sinfi ee zakada la siiyey marka halkaa iyagoo soo gelinaya waxay dhaaheen shirkadda ka shaqaynaysaa khidmadaasay ku leedahay lagu heshiiyey ee la garanayo qodobka saddexaad maalka waxay ka bixinaysaa wixii lagu heshiiyey ee dadka ay ku heshiiyeen qofka shilka ku dhaco intii loo ballan qaaday waa in laga siiyaa marka la hubiyo isaga laftiisu inaanu khiyaano iyo damartayn aanu ku dooninin maalka dadka ka dhaxeeya qodobka saddexaad ama afraad waxay yidhaaheen culimadu xoolahani maadaama ay dadkooda leeyihiin intii ay sii fagmi lahaayeen maalin walba magdhowga laga bixinayo waa in loo raadiyaa hab lagu tarmiyo oo lagu badiyo marka waa la gelin karaa bay yidhaaheen istifmaar iyo maalgashi waa lagu samayn karaa qodobka u dambeeya waxa weeye xoolaha soo hadha si ay uga duwanaato shirkadda nidaamka islaamiga ka shaqaynaysaa tii qaabka ribawiga ee qararka ku shaqaynaysay waa in xoolaha aanay iyadu yeelanin laba markaa halkaas noqonaysaa dadku markii horeba in xoolahan tabaruc bay u bixiyeen ay yidhaahaan waa naga tabaruc iyo sadaqad iyo in xoolahoodii iyaga loo celiyo haddii wax soo hadhaan marka runtii mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin waa mabaadi' kooban oo la xafidi karo caymiska marka waxaa laga yaabaa iminka hadallada faraha badan ee aan isdaba dhigay qofka inaanu si degdega markiiba u xafidin waxaan ku soo koobayaa fariintan koowaad caymisku waa iskaashi ay bini aadanku aanu ka maarmin innaga oo faqiirahoo dal saboole iska daaya wadamada adduunka ugu qanisan baa ka maarmi waayey waayo bini aadanku awoodiisoo laysu geeyo ayuu horumar ku jira bulshada isu tagta oo hal $1 isku darta bishii ayaa waxay dhalaysaa malaayiinka waxaa wax looga qabanaya qofkii u baahnaa laakiin haddii nin walba $1kiisa jeeb ku haysto isna waxba tari maayo dhibaatadiisiina ku xallin kari maayo marka insha Allah xalqada dambe ayaan ku faahfaahin doonaa qaybaha kale ee ah caymiska gaadiidka iyo soo shaqeeyo caymadka caafimaadka iyo soo shaqeeyo iyo fariin u gaara baahida aynu u qabno iyo sida uu waxtarka inoogu leeyahay khaasatan waqtiga aynu ku jirno aynu ognahay shaqo la'aanta duruufaha badan caafimaad xumada bulshadeena haysata aynu ognahay runtii dadkeena maalin walba ay u sii socdaan wadamo shisheeye shilalka baabuurta oo ciidda ka badan qabaa'ilkii iskaashan jiray oo culayskii ciidda kaga batay marka waxaan u baahanay insha Allah tacaala inaynu ku baraarugno caymisku aynu ku shaqeynaa kow inuu yahay nidaam xalaal oo aynu ku ilaalinayno inuu diinta ilaahay shariicada islaamka aanu khilaafin laba inaynu wax ka faa'iidno ee aynaan marnaba is oranin waa culays iyo dhibaato ku soo kordhay waxaan isleeyahay insha Allah tacaala waa wax bulshada u soo kordhaya oo nolosheena wax ka bedeli doona aad baa mahadsantiin